معناها guurkayga diyaar ma u tiid miya waqtiga leema iga dhuminaysay waqtiga kugu dhimanay qof weyn aad tahay say kugu ciyaarani qalbigaaga ciyaar gala okay waxa isbedelkeena ii sheeg ilaa ina update siisay ahayd even hadaa diyaar ahayn hadda degdegan iyo kuleelkan ku hay bal wax ii sheeg ba aniga xataa murugood inay wax kugu dhaceen oo maleynay may waxa aniga kuleel ima haayo laakiin waxa la yaabana isbedel kugu dhacay maxaa waa one week dhan warkaaga ma haayo ani adiina isguursana balanta ahayd taariikhdi waa la dhaafay maxaa kugu dhacay maxaa dibka keenay balanta waxay ahayd 15 September inaan isguursano laakiin xisaabtanka ay la imaade maxaa waay macnaha guurkayga diyaar ma u tiid miya waqtiga leema iga dhuminaysay waqtiga kugu dhimanay qof weyn aad tahay say kugu ciyaarani qalbigaaga ciyaar gala okay waxa isbedelkeena ii sheeg ilaa ina update siisay ahayd even hadaa diyaar ahayn hadda حد أنا هذا الناس يقول سنة رمضان وحرير كان هذا فويا سوى ربطان لا هذا وصل وينا فرحة دي من سوكو بكرة قلت خلق اللي هاد وحلا الوحي شو من هذا أبا عمتا وإني دين كرتا مركان اسخف لنا شانقاري وقتي قاعد فواك السوق وقت ما أنتو قال وقت بدنا السوقيني يا ما أنتو misunderstanding aan ugu dhex jiraan iyadoo isfahmi laanahay ani maba ku dhihinbo macnaha waxba hoos fiirin dawa isla hadlaynaa ma ogta ina hoos fiiriso miin ba isoo aad wajigaaga waxaan ka hadlay waxay tahay waxaan cadda marar badan aan kugu arkay marka qof hadal caadi ka wada hadlaysaan like qosolka oo aan macnaha ku fadhin ma fiicna iska istaaji bas dadka caanka dhan qosolku waa ka calaaqa ma yaa ku dhaha qosol laga xanaaqay oo fari acting aad sameynaysaa but it's okay just dadku way ka xanaaqaan noocan waxa ku dhaha serious topic ka hadlayna qosolka iska keenka iska daayaan ku dhahay intaas la